dawladda ay ama Soomaaliya ay la jaan qaado ahdiyada caalamka ka jira ayna qayb uga noqoto xubnaha markaas ahdiyadaasi hore u saxiixay wabillahi tawfiiq wa maasaki xildhibaan Aweys Xuseen Macalin aad u maasantahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xildhibaanada sharafta leh annagoo waajibaadkeena ka gudanayna faqrad saddexaad maanta ajandaha wuxuu aqrinta labaad uu aqriyay guddiga arrimaha dibadda gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka waxaa noo raacayso codayntii marka howlwadeenada hadday diyaar yihiin waan gelaynaa xildhibaanada sharafta leh axdigan muhiim noo leeyahay ka waddankeena Soomaaliya maadaama uu xakameynayo dhibaatooyinka dhalinyarada ay ku dhacayso marka waxaan leenahay aad u mahadsan guddiga aqrinta labaad uu sameeyay marka xildhibaanada sharafta leh inta xildhibaan ee ogol in axdigan uu golaha shacabka maro oo la ansixiyo oo ama ogolaatay gacanta taaga inta xildhibaan oo ogol soo tiriya waa maasantiin dejiya yaa ka aamusay soo tiriya dejiya yaa xildhibaanada diiday in axdigan uu maro golaha maanta xildhibaanada diiday waa maasantii xildhibaanada sharafta leh soo gudbiya xogayaha iyo howlwadeennadiisa natiijadu waxay noqotay waxaa ka aamusay 3 xildhibaan wax xildhibaan oo diiday ma jiro waxaa ogolaatay 139 xildhibaan waana ansax axdigan caalamiga ee xakamaynta waakada xildhibaanada ogolaaday waa 139 waa maasantiin xildhibaan sharafta leh golaha shacabka waa ku gudbay waxaan u gudbi doonaa golaha aqalka sare idinkoo mahadsan insha Allah soo dhawaad heshiis waa aad u maasantihiin waxaan u yeeraynaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda si uu ugu mahad celiyo xildhibaanada maadaama ay ka soo shaqeeyeen guddiga arrimaha dibadda mahadsanid gudoomiye xildhibaanada waxaan uga mahad celinaynaa ansixintii aqlabiyadda lahayd ee ay sida quruxda badan u ansixiyeen axdigan xakamaynta tubaakada aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin ansixinta aad samayseen mahadsanidin wabillahi tawfiiq mahadsan tahay waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka mudan xildhibaan soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم قدومك شرفت له حلوانada شرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب aad baan idin kaga mahad celinayaa ansixinta email marinta axdigan lagu xakamaynayo tubaakada oo ah heshiis caalami ah meel marinta axdigan waa talaabo aan hor u qaadnay oo aan sar ugu qaadayna caafimaadka bulshadeena aan uga hortagayno dhibaatooyinka ka dhasha tubaakada iyo baradhagtiska la xiriira akhrintii koowaad dhowr xildhibaan baa su'aalo ka keenay maxaa tubaakada kaliya loo dhahay oo taabuuga iyo sheeshada iyo sigaarka iyo maxaa loogu dari waayay waxaan rabay inaan arrintaasi bayaamiyo baradhagtiga tubaakada ayaan ka hadlaynaa waxaana soo galaya wax walba oo ku saabsan baradhagti tubaaka ah ama ha noqoto sheeshada la dhuuqo ama ha noqoto sigaarka la cabo ama ha noqoto midda la calaajiyo ama ha noqoto taabuuga ha noqoto ama midda sanka la saarta ha noqoto nooc walba oo baradhagti tubaaka ah ayuu ka hadlayaa axdigan sidoo kale waxaan arkayay dad akhrintii koowaad su-aal ka keenay oo dhahaya tubaakada keliya maxaa loogu koobay ee sigaarkana loogu soo qaadkana loogu soo dari waayey sharcigii aad halkan ku baasgarayseen
sharciga daawada hindis sharciyeedka daawada ee haddana aqalka sare hor yaallo waxaa ku jira jabtar ka hadlaya substance use kaas ayuu soo galayaa qaadka marka sharciga aad meel mariseen ayuu asigana ku jiraa marka aad baa umahadsan tihiin labada sharciga maandhow la meel mariyey iyo axdigana hadda la meel mariyey iyo sidoo kale mid kale oo heshiis caalami ah oo ku saabsan narcotiga iyo daawooyinka la qabsiga keena ku saabsan oo aan idiin soo wadno usbuuca soo socdo intaba waxay wax ka tari doonaan caafimaadka iyo badqabka bulshadeenna ay wax ka tari doonaan waana idinka mahad celinayaa wada shaqaynta wanaagsan intaa kadib waxaan rabaa inaan masraxan ugu faa'iidaysto inaan idinka iyo bulshada Soomaaliyeed idin soo gudbiyo laba fariin oo aan u arko muhiim inay tahay fariinta koowaad waxa weeye saakay waxaa lii soo diray video wasiir waxaa kaliya waxaan ku siinay mahad celin marka maadaama axdiga uu ku maray raalli noqo xildhibaanaad tahay raalli noqo codsiga mahad celin miya oo ku saabsan oo tubaakada ah welcome wasiir waa mahadsan tahay wasiir adigii tiimkaagaba dhammaantiin waa mahadsan tihiin shaqada adaga ay qabateen fasaxaad tihiin wixii hadda ka dambeeya wasiirka xildhibaan oo fadhiisan karaa asaga soo dhowaada idinkoo mahadsan tiimkaaga kale waa fasax raalli ahaada idinkoo mahadsan waxaan idinka raaligelinaha heshiiska si toosa madaxweynahan u gudbi doonaa insha allah markaan dalaafka warqadaha diyaarino oo coverka ah marka aqalka sare ma aadi doono laakiin toos madaxweynuhu aadi doona aada umahadsan tihiin waxaanu gudbaynaa faqradda afraad waa kusii doonaa xildhibaan jeesow warbixinta akhrinta labaad ee maanta waxaa noo yaalla laba hid sharciyeed oo kale ah macdanta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dhisidda hay-adda adeega saadaasha hawada iyo cimilada labadaba waxaa iska leh hal wasaarad waxaa iska leh hal guddi idinkoo mahadsan guddiga ku shaqada leh maanta waxaan rabaa inaan soo jeediyo guddoomiyaha akhrinta labaad inay soo jeediyaan si xildhibaanada dooda aan u bilaabno marka guddoomiye soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد ujeedda warbixin ku saabsan akhrinta labaad hinda sharciyeedka macdanta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal guddiga khayraadka dabiiciga iyo bii'ada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah in uu idin soo gudbiyo warbixinta akhrinta labaad hinda sharciyeedka macdanta Soomaaliya si waafaqsan qodobka 86 farqadiisa koowaad ee xeeroosaadka golaha shacabka mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh hinda sharciyeedka waxay wasaaradda batroolka iyo macdanta ka hor akhrisay kulanka guud ee golaha shacabka taariikhdu markay ahayd 27 Oktoobar 2025 intaa kadib waxaa lagu soo wareejiyey guddiga si waafaqsan qodobka 85 ee xeeroosaadka golaha shacabka si uu guddiga ugu guto waajibaadkiisa shaqo kadibna uu warbixinta akhrinta labaad oo qoraal ah ugu soo gudbiyo golaha shacabka si waafaqsan qodobka 86 faqrada koowaad ee xeeroosaadka golaha shacabka mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga intii uu ku guda jiray akhrinta labaad xeerkan wuxuu kulmo wada tashi la yeeshay wasaaraddii soo gudbisay sharcigan hinda sharciyeedkan oo ka kooban 18 cutub iyo 96 qodob guddigu wuxuu ku sameeyey sixitaan isugu jira toosin eray bixin qaabayn iyo wax ka bedel iyo ku kordhin qodobiyo farqooyin sida ku cad shaxda halkan ku lifaqan oo ka kooban safka koowaad oo sharciyeedkii nuqulkii wasaaraddu ay soo gudbisay ah safka labaad oo ah wax ka bedelkii uu guddigu ku sameeyey iyo safka saddexaad oo ah faallada uu guddiga ka sameeyey
sidaa daraaddeed mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa si faahfaahsan oo runtii waxtar u leh dalka inaad waajibkiina kaga gudataan sharcigan. waxaad ogsoon tihiin sharci macdan oo macdantoo dhan oo batrool iyo biyo iyo wax walba ay ku jiraan ayaa uu dalka lahaan jiray xilligii dawladdii kacanka. muddadaa wixii ka dambeeyey sharci macdan oo si toosa macdanta Soomaaliya sida looga shaqaynayo iyo waxay tahay iyo sida loo baarayo sida loo ganacsi geynayo ay weli maysan lahayn dalku maysan jirin. waxaan ogsoonnahay majaacada iyo gaajada iyo dhaqaale xumada dalkeena ka jirta. waxaan kaloo dhammaanteen ka wada warqabnaa macdanta wada qaaliga ah ee saxarada la isaga tiro ee xoolaha dadku ay ku tiraantiroodaan ee dhulkeena iska buuxo. waxaan u baahannahay markaa wasaaraddu noo ballan qaaday in la helo agab iyo maxaan ku rahay laboratoriyo lagu baaro dhagxaanta iyada. dadka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah ee xogaha ka haya amaba macdantu inay qaali tahay garanayo dhagax kastoo ay u maleeyaan inuu micnihii qiimo leeyahay intay qaadaan ayay dad kale oo asxaabi yihiin u dhiibaan. war laguma soo celiyey ama waa la tuuraa la yidhaahdaa ama waxaan qiimihii u lahaa aan ahaynaa la keenaa. haddii sharcigan aan yeelanno isla markaana mishiinadii lagu baarayay macdanta kala duwan dalka uu yeesho meel looma qaadayo wixii iyagoo qiimahooda la ogyahay shahaadadooda inay haystaan ayay dalka ka dhoofayaan safar sharcina ugu dhoofayaan. marka wuxuu ka mid yahay sharciyada aad ku muhiimka dalka inuu yeesho aan rabno. waxaan codsanaynaa markaa inaad waajibkiina ka gudataan isla markaana la fududeeyo. intaa kadib sharci kale oo asigana muhiimadiisa gaarka leh oo dhisidda hay'adda saadaasha hawada ayaa asigana guddiga uu ka soo shaqeeyey akhrintiisii labaad iyadoo ina hor taalla. ilaahay idinkii waxaan ka codsanayaa inuu halkan ka akhriyo xogeyaha guddiga walaalkay xildhibaan guuleed. aad iyo aad baad u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. guddoonka labada aqal xildhibaanada sharafta leh bacda saxaafadda howlwadeennada iyo dhammaan intayna daawanayso waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib guddiga khayraadka dabiiciga iyo bee-ada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah inuu idiin soo gudbiyo warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka dhisidda hay-adda saadaasha hawada iyo cimilada si waafaqsan qodobka 86 faqraddiisa koowaad ee xoorasaadka golaha shacabka. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh hindisa sharciyeedkan waxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ka hor akhriday kulanka guud ee golaha shacabka taariikhdu markay ahayd Disembar 15 2025. intaa kadib waxaa lagu wareejiyey guddiga si waafaqsan qodobka 85 ee xoorasaadka golaha shacabka si guddigu uga guto waajibaadkiisa. kadibna uu warbixinta akhrinta labaad oo qoraal u soo gudbiyo golaha shacabka si waafaqsan qodobka 86 faqraddiisa koowaad ee xeeroosaadka golaha shacabka. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guddigu intuu ku guda jiray diyaarinta akhrinta labaad wuxuu kulamo wada tashiya la yeeshay wasaaraddii keentay sharcigan hindisa sharciyeedkan oo ka kooban 8 cutub iyo 54 qodob. guddigu wuxuu ku sameeyey sixitaan isugu jira siiqad toosin erey bixin qaabayn wax ka beddel iyo kordhin iyo dhimis. sida ku cad shaxda halkan ku lifaaqan oo ka kooban 3 qaybood. nuqulkii maalintii ugu dambeeyay laynoo qaybiyo wuxuu ka koobnaa 3 qaybood. qaybta koowaad sidii wasaaraddu ku soo gudbisay iyo qaybta labaad oo wax ka beddelkii aanu ku samaynay iyo qaybta saddexaad oo faallo guud ah. sidaa darteed mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa baarlamaanku inuu ka guto waajibaadkiisa sharci. anigoo ku hadlaya afka guddigana
aanu weelayno qorno insha allah wax ka beddelkiisa si aanu ugu soo darno akhrinta saddexaad aad iyo aad baa u mahadsantiin mahadsanid xildhibaan cabdiraxmaan isaaq cadow raalli noqo saasaa qornayd cabdow weeyaan xildhibaan cabdow soo dhow بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada sharafta leh mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh warbaahinta dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo inta telefishinada naga daawanaysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u malaynaa dhawaanaha isma maqlin waa ii xiisteen anna waa idin soo xiisay inta ii xiistay intaan ii xiisinna anigana uma xiisin intaas kadib mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha macdanta sida aan ognahay xildhibaanada sharafta leh dalkan Soomaaliya la yiraahdo wuxuu qaatay federalism xoogaa waxaa moodaa inaansan dadku Soomaaliyeed ama dawladaha dadka madaxweynayaasha ka noqonayo inaysan wax badan ka fahmin federaalka federaal waxaa la yiraahdaa dad wada nool oo qowmiyad ah haddana qaybsan inay wada noolaadaan rabaan haddana wax isku darsanaayo marka arrinka inaan saas u fahanno muhiim waaye laakiin xukuumadda haddii la soo aruuriyo oo hal meel la isugu keeno waxay noqonaysaa middii la iska diiday oo lalahaa waa la duminayaa lama ogolo waa dictaatoriyad haddana dalkan in dictaatoriyad kale dib loo aas-aaso ansax ma ahan waxaan rabnaa warka in la kala qaado khayraadka la kala qaado dadku ay kala qaadnaadaan haddana laisla noolaado mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh sida aan ognahay dawladda federaalka waxay mas-uul ka tahay badda iyo beriga iyo suhrimaha dalka waxaysan dawladda federaalka ay mas-uul ka ahayn haddii maamul goboleed macdan uu helo waxaa mas-uuliyaddeeda leh oo laysankii ogolaanshaha bixin kara maamul goboleedka agtiisa wax laga helay dawladda federaalka waxay xaq u leedahay inay korjoogtayso ay ka warqabto micnaha aan ka fahmi karno federaalka sidaas weeye laakiinse haddii wixii hal meel laga wada xukumayo haddii batrool la helo dawladda federaalka ay xukumayso haddii macdan la helo dawladda federaalka ay xukumayso waxaa meesha ka baxaya micnaha loola jeedo federaal marka federaal ma niine tii aan diidi jirnay mid lamida la wadaa waxaa kaloo la yaab leh aan la yaabay dalkan ninka markuu villada gelin ka hor waafayooyahay uusan madaxweyne noqon meesha markuu aadana wuxuu jecel yahay dawladdii uu waa soo diid uu leeyahay say wax u xukumayso inuu xukumo arrinkaas sax maahan mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh warka inaan kala qaadnaa fiican dawlad dhisaa lagu jiraa dalkan in sidii aan ka soo cararnay haddana aan dib ugu noqonno sax maahan waxa si fiican ha loo qaybiyo haddii maalin walba halkaa la yimaado hindir sharciyada la keeno la yidhahdo halkaa laga aqriyo annaguna aan gacmaha taagno waxay noqonaysaa inaanan waxba dhisin haddaan wax dhisayn waa in good foundation la helaa wax fiican oo jiilka annaga naga dambeena ay ku raaxaystaan laakiin qofka meesha joogo iyo dadka meesha joogaan say rabaan haddaan yeelyeelno dhibaataa ka imaanaysa dalkan waa og tihiin dhibaatooyin badan uu soo maray hadda ayaantan batrool iyo macdan waxbaa la sheegaya iyo dahab ummaddaana weligeeda islayn jirtay haddii dahab la helo waxaan u malaynaa gowraaco intuu intaan ka badan doono marka ummadda yaan dhibaato loo horseedin khayraadka la helo waxaa rabaa in lagu raaxaysto mudanayaal
xildhibaanada sharafta leh waxaad ansixinaysaan iyo waxaad oggolaanaysaan inaad isha ku haysaan annagu yaysan noqonin meeshan sharci dalkan inaan u dejino loo baahnaa inaan ummaddan isku layno ama dhibaato aan u horseedno oo dilka usaan ku sii ziyaado waad og tihiin waxaad markhaati ka tihiin ummaddan iyadoo waxba haysanin maalin walba inay isku dagaalaan bannaan cidlo aan waxba yaalin ma qiyaasi kartaa ummaddaanoo la yidhi dahab iyo batrool baa la helay say u ekaan doonto sawirka aan ka qaadan doonno waa fahmi kartaan aadaa u mahadsantihiin mudane guddoomiye warkan yaan la dheelsanin hadday khayraad laga hadlaayo waddankan waxaa roon in warka la kala caddeeyo dadkana yaan la isku dirin shatiyada khayraadka dadka agtooda laga helo magaalooyinka laga helo waa in mudnaan la siiyaa dadka deegaankaas deggan waa in wax loo ofargareeyaa haddii deegaanka batrool laga helo dhibaatada batroolka wato deegaanka dadka deggan dhibaatada soo gaari doonto waa in wax la siiyaa haddii macdan la helo dadka macdanta agtooda loo qodaa in wax loo oggolaado laakiin haddii la soo arooriyo inta la wada keeno xeenta aan ognahay baasha ay ku goobato dad keliya ay wax cunaan barwaaqada dalkan ummad keliya ay wax hesho ay isu maleeyaan iyo iyagu leeyihiin arrinkaas sax maahan xildhibaanada sharafta leh guddoonka baarlamanka aad baan idin salaamaya waa mahadsantihiin xildhibaanada idinkuna waxaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh aad mar walba ii dhegaysataan aadaa ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsan xildhibaan maxamed aadan daahir waa qaybta dambe xildhibaan daahir amin jeeso mahadsanid guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waad mahadsantihiin aan isdhegaysanna wax yar sharciga akhrintii labaad maanta maraayo waa macdanta macdantu waxaad og tihiin khayraad ilaahay nagu madnaystiyo waddankeenna isqani ku yahay laakiin aan laga faa'iidaysanin waaye waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto khayraadkaas macdanta ah macdantu waxay noqon kartaa dahab waxay noqon kartaa dhagxaanta qaaliga ah waxay noqon kartaa xataa uraniumka ayay noqon kartaa marka in laga faa'iidaysto oo khayraadkaas qof kasta oo muwaadin oo soomaaliya deegaankiisa khayraadka ku jira uu ka faa'iidaysto xurna as u noqdo oo maanta intaad kambani samaysato deegaankaaga nimcada ka soo baxda aada iska dhoofsan karto waa shay aad iyo aada muhiim u ah marka sidaad la socotiinba ama xildhibaankii iga horreeyey oo u sheegay waxaan qaadanay nidaam la yidhaahda federaalku waxna waa la leeyahay waxna waa la kala leeyahay waxyaabaha la leeyahay ee dowladda federaalka ay waajib ka akadaa difaaciddeeda iyo ka faa'iidaysigeeda iyadoo weliba gaadhsiinayso qaybaha xaqa ay ugu leeyihiin iyo shuruucdii hore loo ansixiyey waxyaabaha ku qoranba wixii biyo ah ama hawo ha noqoto ama biyo ha noqotee waxaa xaq u leh dowladda federaalka inay muxuu ahay maamusho waxaad ogtihiin dowlad goboleedyaa jira oo dalka ka hirgalay dowlad goboleedyada deegaamo beri ah ayay ku fadhiyaan dabcan dad badna waa jirtaa laakiin baddaas ayaga hadda shuruuc horaa ka soo baxday oo dowladda federaalkaa si dhab ah loogu xil saaray mana rabno shuruucda muxuu ahaay aan samaynay inay isduqeeyaan iyaga ma aan doonayn marka waxaan rabnaa shuruucdaas iyagaa ee la samaynayo kuwa kala badbaado oo aan isduraynin oo aan iska dawlaabanaynin inay noqdaan si kaleerayna loo qeexana waa muhiim taasaa keenaysa inay shuruucdeenna ay kala badbaado in muxuu ahay sharciga aan samaysanayno sharci
professionaala oo wanaagsan uu noqdo anigu waxaan qabaa oo aan sharcigan ku soo kordhinayaa wixii biri ku saabsan in loo daayo dowlad goboleedyada muxuu ahaay ama isteedyada hadda sidii qofka u yaqaano in loo daayo ka faa'iidaysiga khayraadkooda deegaanka biriga ah ee iyaga ay leeyihiin oo sharcigana sidaas ugu qeexnaado oo aanay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii ayna isku dhac isugu imaanin ay kala badbaadaan sharcigii ugu horreeyey ee 2012 aan sameeyay wuxuu ka hadlayay qaabka loo dhisay dowlad goboleedyada iyo degmooyinka waa sharcigii ugu horreeyey ee baarlamaankii sagaalaad uu sameeyay sharciga maanta meel isku dambeeya lama oga dowlad goboleedyadii shuruuc ay iska samaysteen dowladdii federaalka ee shuruuc kale ay samaysay wixii oo dhan maanta waxaa ku jira mugdi iyo madow meel ay ku dambeeyeen iyo cid hirgelisaba sharcigana markii la sameeyo wuxuu u baahan yahay in la hirgeliyo oo dhaqangal noqdo hadduusan dhaqangal noqon wuxuu noqonayaa dheemish uu noqonayaa sharci aan shaqayna uu noqonaya marka si shuruucdeena ay u noqdaan kuu shaqeeyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada awoodahooda waa in la kala qeexaa anigu waxaan qabaa markii macdan laga hadlayo dowlad goboleedyada ayaa xaq u leh biriga waayo waxa ay qabanayihiin ayaaba ah inay ka shaqeeyaan birigaas wax soo saarka biyaha wax soo saarka dahabka inay iyaga xaq ay u yeeshaan oo sharcigan aan samaynaynin lagu caddeeyo laguna qeexo haddii laakiin wixii oo dhan ay isku dhex jiraan hadhowta dab waxay noqonaysaa sharci muxuu ahay dib noogu soo noqdo oo aan kala qeexnayn hadda ka hor waxaan xasuustaa sharci ayaan 3 bilood gudahooda aan 2 goor bedelay sababtoo ah waa isku dhacay keeneen laba hay-adood ayaa isku qabsaday marka si ayna wixii lasiigu qabsan inay kala qeexnaadaan oo shuruucda la qoraayo ay ku qeexnaadta wax walbaba ujeeddada loo sameeyey iyo cidda khayraadkaas ka faa'iidaysanaysa u qeexnaado wixii biri ah waa ku celinayaa weliba waxaa xaq u leh dowlad goboleedyada waa samaysneen meel aan maanta dowlad goboleedka talinayninna ma laha inteenaan meesha wada fadhiisa maanta oo baarlamaanka ah nin walba dowlad goboleed uu ka yimi oo si gaara uu sii difaacaya oo danihiisa lagula xisaabtamaya oo sharcigaa maxaad ka tiri laleeyahay marka si aan u gudubno waajibaadkeenna shuruucda aan samaynayna waa inay noqdaan kuwa professionaal oo deegaankaada uu ka faa'iidaysan karo marka waxaan hadalkayga kusoo koobayaa dowlad goboleedyada ha loo daayo wixii birigu ku saabsan oo macdan ah oo sharcigan uu tilmaamayo aadaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahadsan xildhibaan maxamed aadan daahir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan xildhibaanada guddoonka bahda saxaafadda iyo inta kaloo martida oo nala joogto wasaaradaha ka socoto aniga su-aalaheedu waxay quseeyaan sharciga labaad ee quseeyaan ma aha sharciga koowaad waxaan rabaa dhowr su-aal inaan weydiiyo guddiga iyo inaan weydiiyo rabaa guddiga weydiiyo su-aasha koowaad waxay leedahay horta hay-addan saadaasha waa khadka koowaad ee badbaadinta nolosha ayadoo bixinaysa digniino ka hortag ah waa ogtihiin adduunyada waxaa ka dhacaa tsunami oo kala dhacay oo dhibaatooyin badan geystay mar walba annaga waxaa dhaca fatahaadyaa dhaca dadku waxay iska degaan meelo oo godode ah oo inta roob daran da-a markaasaa dadkii hore intuu soo xaaqaa ayaga iyo macalin xoolahoodii iyo macalin alaabtoodii oo webiga soo qaadaya marmarka qaarkood waxaa dhacdo biibaxa inta timaada xilli beeraad ah dadkii beerihii tabcadeen oo masagadii galeydii iyo sisintii inay hal mar ay bixiso
inkastoo taas ay u baahan tahay adeeg guud oo wasaaradaha ay khusaysa iska kaashtaan. waddanka waxaa ogtihiin abaaraha kusoo noqnoqdo roob la-aanaa jirto. dadka markay roob la-aan jirto xataa waxay samayn karaan kayd oo calafka xoolaha ay kaydsan karaan. ma jirto digniino sax ma jirto. marmarka qaarkood heer oo dad qaarkood ay leeyihiin roobkaa nagala qaatay iyo inkastoo cimilada ay dhibaatada ay keenayso la ogyahay oo dhulkeenni annaga geedahan ka gurannay dhuxul aan ka shidanay oo intaas ay keenayso maayna dhulkan wuxuu ahaan jiray dhul fiican oo aaran oo nimcaysan oo ahaan jiray. hadda sanadkan iyo sanadkii ka horreeyey roob ma di'in. indaaraadka ama digniinaha la bixinaa waxay tahay digniino aad iyo aad khatar u ah oo dadka Soomaaliyeed dhibaato oo abaar weyn ah lagu jiraa. dadka ka warhaayo gobolada kuleyl badan ka jiro xoolihii waa ba'ayaan. dadkiina maxay ahayd ii sheeg khatar ku sugan yihiin. kolley ka xildhibaan ahaan iyo ka bulsho ahaan maadaama aan matalaadnahay gobolada qof walba uu ogyahay oo dadka uu ka soo jeeday iyo meelaha laga soo doortay dhibaatooyin badan oo waxaa jirta abaar daranaa jirto. dadkeena Soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha ku tiirsan labadina abaarta si adiga u saameynaysa. marka waxaan rabaa hay'adan muhiimadaas leh oo maanta aan u taaganahay inaan su'aalo ka weydiiyaan rabaa guddiga. su-aasheedu koowaad waxay tahay madax bannaanida hay'adda sidee loo xaqiijin karaa hay'adan adeega saadaasha hawada iyo cimilada inay si dhab ah uga madax bannaan tahay ayadoo weliba hoos tegayso wasaaradda environmentiga ama cimilada. su-aasheedu waxay tahay sharcigan wuxuu sheegayaa hay'adda tahay mid madax bannaan marka ay gudanayso waajibaadkeeda. qodobka 8aad balse sidee loo sidoo kale ay maamul ahaan hoos timaado wasaaradda environmentiga. su-aasha koowaad waa sidaas. su-aasha labaad su-aal ku saabsan miisaaniyadda iyo culayska dhaqaale ee dalka ka jiro ayadoon ognahay hadda hay'adan ay nagu soo korortay oo weliba hay'ad ay tahay muhiim oo dalka u baahan yahay. hay'adan cusub ma ku noqon doontaa culays miisaaniyadeed oo cusub dowladda federaalka ah mase waxay leedahay ilo maalgelin oo kale. qodobka miisaaniyadda qodobka 32 iyo 36 wuxuu muujinayaa in miisaaniyadda hay'adanu ay ka mid noqonayso miisaaniyadda dowladda dhexe ay ka mid noqonayso. su-aasha 3aad sidee hay'adan qaran ula shaqayn doontaa dowlad goboleedyada gaar ahaan marka laga eego saldhigyada kormeerka xog ururinta bixinta adeegyada. sharcigan wuxuu dhigayaa in hay'adanu laamo ka furanayso dowlad goboleedyada. qodobka 4aad marka su-aalo oo isku soo noqnoqonaho inta badan oo sharciga aad u fiican yahay qaab fiicanna guddiga ugu soo shaqeeyeen oo aad u soo diyaariyeen. marka maxay tahay muhiimadda ay leedahay hay'adan ama dadka Soomaaliyeed iyo dowladdaba maxay muhiimad ay u leedahay oo hay'adan in la sameeyo maxay muhiimad ay u leedahay taasna waa rabay su-aashaas in laga jawaabo. qaabkee lagu xulaayo khubaradeeda ma u dejiseen qaab lagu xulaayo khubarada hay'adda ilaan uma baahno dad technical uma baahno waxay u baahan tahay dad khubaro ah oo bartay cimilada bartay. dadkii dalkan way leeyihiin mase madax ka taabashay noqonaysaaho qof walba qof jeclaysa lagu keenaya qaabkee lagu soo xulayaa. marka waa mahadsantiin mar kale waa idin salaamaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. mahadsan xildhibaan waxaan yeelaa guddoomiyaha guddiga xildhibaan yuusuf gamaadiid. xildhibaan hadda qarhaali noqo aweys baa kaa horeeya xildhibaan. asalaamu calaykum. gudan guddoomiye aad u mahadsan tahay. habdhowruhuna waxaa weeyaan waa mahadsan yahay. xildhibaanada hadlay saaxiibkay
xildhibaan cabdow iyo xildhibaan jesow iyo caanoy dhammaantiin baad mahadsantihiin waxaan ku hormarayaa arrinka macdanta ama sharciga macdanta oo dhammaan la sheegay in dalku federaal uu yahay dowlad goboleedyaduna ay leeyihiin xaquuq ay wax ka maamulayaan barnaamijkan waxaan wada ogsoonnahay dhammaanteen inuu jiray heshiis la yidhahdo heshiiska lahaanshaha maamulka wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ee dalka waa shidaal iyo macdan ka kooban waxaa la saxiixay 5tii bishii 6aad 2018 heshiiskaasi baarlamaankii 10aad wuxuu la meelmariyey oo uu ku lifaaqan yahay heshiiska batroolka heshiiskaas waa dheer yahay dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo ra-iisul wasaare khayre markaa uu ka ahaa u saxiixay dhammaantood way saxiixeen waxaa ku yaala sida loo maamulaya khayraadka sida go-aan lagu gaarayo dakhliga ka soo xaroodo iyo maxaan ku rahday canshuurihiisa iyo dhammaanba xaqa saxiixa dhammaan sida loo kala qaadanayo halkaas ay ku wada xusan yihiin dhammaan hadda naftigeedu intii howlgallada batroolka ama howlaha batroolka la bilaabay lacaga badan ayaa waxay ka soo xaroodeen howlaha batroolka oo u badnaa kiraynta blookyada ay shirkaduhu hore u lahaayeen iyo kuwa gadaal ay looga siixayba iyo xaqulqalimka ama maxaan ku rahaa shano bonuska wax loo yaqaan dhammaantood siduu heshiiskan qabo oo waxaan u malaynayaa in aad wada heli kartaan haddaad ku qortaan beeshka hay-adda batroolka soomaaliyeed uu ku jiraa heshiiska asiga sida loo wadaagaya shaxda ayaa ku cad dowladda federaalku maxay leedahay marka ay tahay offshore-ka iyo marka ay tahay onshore royalty-ga maxay leedahay signature bonuska maxay leedahay surface rent-ga maxay leedahay license fee wax la yidhahdaa jiro sidoo kale dhammaan macdan iyo batrool way dhammaan dowladda federaalka percentage ay leedahay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee laga soo saaraya khayraadkaas ama macdan ama shidaal maxay percentage ay leedahay degmada naftigeeda sida gaarka looga soo saarayo erideeda iyo goobteedu maxay leedahay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ee aan laga soo saarin ama khayraadkaas uusan oolin naftigeedu maadaama saameyn deegaan ay ku yeelanayso maxay leedahay intaba meeshay ku caddahay ee uu dhammaan dowlad goboleed dowladda federaalka ay wada saxiixeen marka waxaan u malaynayaa markaas inay nooga dhan tahay see loo wadaagayaa iyo see loo maamulayaa khayraad marka ay joogto dhanka kale sharcigu naftigiisu way ku sii caddahay wuxuu leeyahay marka macdan laysanadeeda la bixinayo leebal lagu qeybiyo ilaa 3 leebal nuucyada yaryar oo dadka gacan ku qodotada iyo ay baaranayaan waxa weeyaan xataa iska dhaafee dowlad goboleede qofka odiga ka ah deegaankaas ama mas'uuliyad ay saaran tahay in ogolaansho laga helay qasab tahay iska dhaaf hadii dowlad goboleed adduunka oo dhan waa saas ayaga iska leh waxaan sharciga ay ku cadday marka hoos iyo akhrisaan intaa kadib arrinka kale ee ku saabsan ayaduna oo xildhibaan caanoy uuna weydiiyey su-aasha hore tii cabdow iyo jesow yaan kaga jawaabayay oo ku saabsan dhisidda hay-adda saadaasha hawada iyo howlahay leedahay inay guddoomiye ku-xigeenkan siinaya insha allahu tacaala haddaad noo ogolaataan mudana guddoomiye si ay xildhibaanadu iyagana su-aalahooda looga jawaabo aad baad u mahadsanta بسم الله waxaan salaamayaa guddoonka dhammaan xildhibaanada iyo wasaaradda environmentka howlwadeenada wasiir ku-xigeenka agaasimaha iyo khubradaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan uga mahadnaqayaa su-aalihii qiimaha badnaa ama talooyinkii ay soo jeediyeen xildhibaan cabdiraxmaan xildhibaan daahir iyo xildhibaan caanood siduu u sheegay guddoomiyihii iga horreeyey macdanta waa saas waxa weeyaan meesha ay ka soo bilaabmayso waxa weeyaan dowlad goboleedka exactly baadiyihiisa marka waa wax la wada leeyahay waxa laga hadlay waa laysanka yaa xaq u leh inuu laysanada bixiyo dabcan meesha ay hawshu ka socoto ayaa muhiimadda inay laysanada bixiyaan sababtoo iyagaa ilaalinaya
dowladda federaalka doorkeeduna waxay noqon kartaa korjoogteyn iyo in maaragtay procedureka ay ilaaliso iyo policyga iyo political level wixii dowlad goboleed xaq looga leeyahay sida royalty-ga sharcigaasa sheegay ama canshuuraha saas ayay talooyinka ku aadanayeen waana talooyin wax ku oola haddaan usoo noqdo dhanka hay-addan su-aalihii muhiimka ahaa uu weydiiyey madax banaanida hay-adda waxay noqonaysaa sidaan sharciga ku caddaynay hay-ad madax bannaan wasiirka wasaaradda bii'ada wuxuu noqon doonaa mid ku ilaaliya bolisigeeda iyo korjoogteynteeda waanan ku caddaynay sharciga inay hay-ad madax bannaan tahay si dee waajibaadkeeda shaqo ay u gudato haddii ay noqoto dhanka maxay muhiimad leedahay waxay muhiimad leedahay waa in la ogaado ay maaragtay shaqadeedu waxa weeyaan maxaa fatahaad soo socda maxaa dhibaata waxa weeye early warning inay bixiso waxa la yiraahdo meteorology waxa soo socda si maaragtay looga gaashaanto 74kii abaarihii sidaas oo kale dadkii la soo raray meel kale la geeyay waqtigii qofkii waagaas yani saanu sheekada ku helay marka muhiimadeedu waxa weeyaan in aynu maaragtay ay ka shaqeeyaan dadaaladaas oo waddan kastana way leedahay marka waxa weeyaan muhiim bay noo tahay inay wax walba ay maaragtay ay ka shaqeyso oo arrintaas waxa kaloo li sidee lagu xulanayaa shaqaalaheeda dabcan waa ku muujinay sharciga in lagu xulanayo qaab xirfadeed qaab waxaa jira xirfad waa labo mid aqoona iyo mid experience waxaa jira qof u leh aqoon laakiin experience aan lahayn مثلا wuxuu haystaa master degree weligii kama shaqeyn waa lagu kaabi karaa ama qof waxaa jira bachelor haysta laakiin PhD aqoon dhiganta leh marka waanu ku adkaynay in ayadoo la eegayo boardka guddiga inay maaragtay yeeshaan aqoonta oo lagu xulo qaab imtixaan ah taana waanu ku xusnay waxa kaloo ah dowlad goboleedada sidee bay ula jaan qaadayaan waxay ka furanayaan xarumo oo maxay haytay dowlad goboleed kastaba xaruntiisa ayaa agabkiisa iyo hawshiisa maxaan ku rahdaa lagu ilaalin doonaa haddii ilaahay yiraahdo miisaaniyadda hay-addan miisaaniyadeeda waxaa jirta dabcan support bay helaysaa international maadaama aynu waddankeena environmentka uu dhibaateeyey oo aafeeyey oo ay dhinac walba ay ka aafaysan tahay marka taas waxa weeyaan waxay haystaan iyagu support bay helayaan haddii ilaahay yiraahdo marka hay-addan waxay ka shaqaynaysaa wax kasta oo looga baahnaa inay ka shaqayso waana muhiim waana wax wanaagsan oo soo kordhay gudoomiyaha ama maareeyaheeduna wuxuu noqonayaa mid maaragtay isagu maamula dhaqdhaqaaqiisa daily to daily activity aanay wasaaraddu la soo fargelinin intaasaan kusoo gaabinaya waana mahadsantihiin waa mahadsan tahay xildhibaan marwo gudoomiyaha gudoomiyaha sidoo kale waa mahadsan yahay guddiga khayraadka dabiiciga iyo bii'ada faahfaahinta iyo maanta su-aalaha iyagaa iska lahaa inay ka jawaabaan si sax ayna ugu jawaabeen labadii hinta sharciyeed ee kala ahaa macdanta iyo hay-adda adeega saadaasha iyo cimilada iyo hawada marka aad u mahadsanyahay guddigii waxaan rabnaa marka intaan shirkan soo xirnay inaan siino wasaaradda gaar ahaan wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka fadhiyaan soo dhawaada wasiir soo dhawow haddii aad faahfaahin yar ka yara bixinaysiin shuruucda maanta nala taalla بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها برلمانكا xubnaha sharafta leh golaha baarlamaanka Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan ku faraxsanahay maanta halkaan inaan hortiina aan keeno sharciga dhisidda hay-adda saadaasha hawada Soomaaliya saad ka warqabtaan waayahan waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta ay leedahay isbeddelka cimilada oo waxaa jira waxaan u dhaxaynaa abaar iyo fatahaad waxay saameyn ku yeelatay nolosha dadkii nolosha asaasiga waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalihii waddanka waxay saameyn ku yeelatay wax kasta oo saameeya waddankeena noloshiisa maadaama culayska intaa leeg ay jirto waxaana wax mar dhacaya ay ahayne waxna daba socda ay yihiin waxaa muhiima
inaan ka fikirno sidii aan uga hortegi lahayn dhibaatooyinka nagu dhacaya. Marka hay-adda saadaasha hawadu shaqadaasi waxay ku leedahay door aad u muhiim ah oo ah inay ka digto dhibaatooyinka waxyaabaha nagu soo socda mustaqbalka si cilmiyeysan inay uga digto oo aanan cidna marti uga noqonin inaan la wadaagno dadkanaga Soomaaliyeed xog rasmi ah oo cilmi ku dhisan oo saadaasha hawada iyo isbeddelka cimilada khusayso. waxaan u mahadcelinaa guddiga iyo gudoomiye Marwo iyo tiimkii kale oo shaqadan quruxda badan la soo qabtay kommentiyadooda muhiimka ah xitaa waan arkay iyo xubnaha kale oo baarlamaanka iyo gudoomiyaha sidoo kale gudoomiye Gamadiid waan u mahadcelinaa isagana dadaalkiisa iyo hoggaanka baarlamaankaba. maanta intaasay nooga egtaa umaleeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wabashada wasiir hadii tiimkaagaba xildhibaanada sharafta leh waxaan maraynaa gabagabadii kulankeenii maanta aqrin saddexaad aan ka rabnaa ka sugaynaa guddiga khayraadka dabiiciga iyo biyaada dhammaantiisa iyagoo isku dhan labada hin sharciyeed ee ku saabsan macdanta iyo hay-adda adeega saadaasha hawada iyo cimilada markaas soo diyaariya idinkoo maadsan aqrin saddexaad anaguna soo celiya shirkeena maanta wuu inoo xiran yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.